Fertilize for man waxaa loogu talagalay ninka ragga ah. Fertilize for man ninka ragga waxyaabo badan ayuu ka caawiyaa. Ninka ragga ah haddii uu egfashan qabo, egfashanka wuu ka caawinayaa. Ninka ragga ah haddii ugxaantiisu ay daciif tahay, ugxaantiisa kor u soo qaadaya. Ninka ragga ah xagga waqtiga uu la qaadanayo xaaskiisa energy badan ayuu siinayaa. waxaa ku jira vitamin aad iyo aad u fara badan maasha Allah tabaarak. Prostate-ka ayuu aad u support gareeyaa. Prostate-ku waa 3 nooc. marka koobaad ninka ragga ah kaadida ayaa gubta, xilligaas waa markuu egfashanka ku bilowdo. marka labaad qanjirka ayaa barara, waa xilliga ay kaadidu markasta markii uu musqusha galo ninka ragga ah inay kaadi haysa ayuu u malaynayaa, laakiin kaadidii inay ku bargo'da ayuu dareemaa. wuu soo baxa haddana musqushuu ku noqonayaa, gubasho badan ayuu ka dareemayaa ibta. xilligaas waa marka uu qanjirku bararka uu keeno. xanuunka prostate-kana kiniinigan aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay. step 3 waa marka uu xilliga kansarka u gudba, ilaahay ha naga hayo. ninka ragga laga tuuro, mar haddii ninka ragga prostate-ka laga tuurana ma dhalaayo anymore, sababtoo ah prostate-ka wuxuu waa dheecaanka keliya uu soo daayo ninka ragga xilliga uu ilmaha uu ilaahay abuurayo oo asagii xaaskiisa ay wada jameecayaan. marka vitaminkan aad iyo aad ayuu u fiican yahay. waxyaabo badan oo ninka ragga ka caawiya. hormono support waaye maasha Allah. 60 xaba ayaa ku jiro. maalintii waxaa loogu talagalay hal mar inuu 2 xaba qaato. ani marka aan ka iibinayo waxaan u sheegaa ninka ragga ah subaxii 2 xaba inuu qaato. sideedana wax kalan idin faa'iideynaya. Vitalize meesha ay ku qoran tahay haddaa fiirisaan calaamada yar ee 4 geeska ah waa calaamada vitamin walba ay calaamada saaran tahay wuxuu kordhiyaa vitality-ga ama ugxaanta ayuu kordhiyaa. waa calaamadaha ugxaanta alaabta kordhiyo lagu garto. calaamadaas 4 geeska ah hadday tahay gabadhana way saaran tahay, wiilkana way saaran tahay. borotaktayaal badan oo xataa aan kambanigeena ahayn haddii aad ku calarta calaamadaas waxay u taagan tahay waxyaabaha ugxaamaha kordhiyo waayo oo kor u qaado qofka bini'aadanka ah vitality-geeda ama ugxaanteeda maasha Allah tabaarak.